السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش ku xiran channelkayga TikTok hajiya ku soo dhawaada meel walba aad joogtaan isagoo maqalkayga idin soo gaarayo. Mawduuciga maanta wuxuu ku saabsan yahay haduu rab raali ka noqdo dhibaatooyinka laga dhaxlo haday hooyadu aysan qaadanin folic acid ay ka dhaxli karaan ilmaha maxay noqon karaan. Haduu rab raali ka noqdo mawduucaas ayaan falqeynaynaa muuqaalka laagsaar unisha shargare asxaabtaada. Hadii aysan hooyadu folic acid ku filan jirkaaga uusan ku jirin neerfahaaga ama unugyadaada laga yaabaa in ay si saxan ay u shaqeynin waxayna saameyn kartaa ama dhibaato culus ku reeban kartaa ama u geysan kartaa ubadka caloosha ku jira. Folic acid-ga laba mar ayaa la isticmaalaa. Kow, hooyada markay ku jirto xaaladda pregnancy-ga waxay isticmaali kartaa 2 bil ilaa 4 bil ugu horeysa. Sidoo kale hooyada markay isku diyaarinayso in ay ubad hesho ama ay rabto ubad in ay dhasho labadaas mar ay hooyadu isticmaali kartaa folic acid. Haddaba goorma ayaa bilaabi kartaa qaadashada folic acid-ka? Waxa aad bilaabi kartaa 3 ilaa 4 toddobaad ee ugu horeeya uurka. Marka waxa muhiim ah in aad ku hesho nidaamkaaga inta lagu guda jiro marxaladaha hore marka maskaxda iyo ay sameysmayaan laf dhabarta ilmaha. Haddii aad la hadasho dhakhtarkaaga marka aad rabtid in aad uur qaado waxyaabaha aad u baahan tahay ayuu markaasi kuu sheegayaa kula wadaagayaa. Dhalmada ka hor folic acid-ka hal daraasad ayaa lagu sameeyay in dumarka qaatay folic acid-ka ugu yaraan 1 sano ka hor inta aysan uurka qaadin waxay yareeyeen ama ay iska beerdareen fursadii 50% ay ku qaadi lahaayeen ubad. Waxaa lagula talinayaa in aad bilowdo qaadashada folic acid-ka maalin kasta ugu yaraan 1 bil ka hor uurkaaga iyo maalin kasta inta aad uurka leedahay. Si kastaba ha noqotee waxay sidoo kale kula taliyeen in dhammaan haweenka da'da dhalitaanka ku jira in ay qaataan folic acid maalin kasta. Marka waxaa fiicnaan lahayd in aad bilowdid qaadashada xitaa ka hor dhalmada. Folic acid-ka ayaa la ogol yahay in ay qaadato uur isku diyaarinta bisha ka horeysa in ay hooyadu ay qaadato. Sidoo kale inta ka horeysa oo hesho marka ay hesho uurka kadibna ay qaadato 2 toddobaad ilaa 4 toddobaad inta lagu jiro ay bilaabaysaa. 2 toddobaad hore hadii markaas hooyo ay soo xasuusato ay aado goobaha caafimaadka ah waxay markaasi si degan ku heli kartaa folic acid waxaana loo siinayaa kg dhammaan hooyooyinka markaasi taga xarumaha caafimaad. Waxa loo xisaabiyaa doosas ayaa loo xisaabiyaa ay qaataan waqtiyada qaar. Haddii aad markaasi aad iibsanaysidna waa in aad si xad yar u isticmaashaa aadan iska badinin dooska. Haddaba dhibaatooyinka caruurta ay ku dhashaan badanaa waxaa sababa folic acid qaadasho la'aanta ay hooyadu aysan qaadanin. Caruurta ku dhasha bismaha jeexsan ama furuuryaha oo furuurta jeexsan ku dhasha. Sidoo kale ilmaha markaasi maskax garaadka qaba ama maskaxdooda aan si fiican aan u korin development ay sameeyeen oo ay kamid yihiin sidoo kale ilmaha in laf dhabarta ka soo muuqda waxyaabaha kuusan ama loo yaqaano spinal oo horumarinta aan dhameystirnayn oo ku saabsan xudunta laf dhabarta ama laf dhabarta kaligeeda oo aan horumarin ama development ay sameeyeen. Badanaa ma noolaadan cimri dheer kuwa qaba laf dhabarta waxaa laga yaabaa inaysan naafo u noqdaan ama ay u naafoowaan. Kuwani waa dhibaatooyin cabsi leh laakiin war wanaagsan ayaa ah in la heli karo folic acid oo markaasi ka hortag u ah damage-ka ku imaada ilmaha ayna ka ilaalinayaan dhalankaaga cilada ee tubada neerfaha ugu yaraan 50% haddii aad horey u dhashayna cunug qaba ciladan xagga tubooyinka neerfaha ah. Halista helitaanka folic acid-ka ku filan waxay yareyn kartaa halista in aad cunug kale oo leh isla dhibaatadan. Marka hooyooyinka uurka isku diyaarinaya sidoo kale oo uurka leh haddii aad heli weyso folic acid xilliga aad uurka isku diyaarinayso hooyo qaado marka aad uurka hesho 2 isbuuc kadib ama 4 isbuuc kadib waa aad bilaabi kartaa qaadashada folic acid. Waad ku maasan tahay daawashada muuqaalka la garee una share garee asxaabtaada.